laakiin dhinaca kale Axmed Madoobe waxa uu qorshihiisa kala mid noqday dhammaan dawlad goboleedyada federaalka marka laga reebo hooyada federaalka ee Puntland. dabeecadaha Jubbaland ayaa ka gadisnaan doona sida la rumaysan yahay kuwii yaala Galmudug, Hirshabeelle ama Koonfur Galbeed, sababtoo ah dadka deegaanadaas qaybo badan oo ka mid ah ayaa ka soo horjeeda in Axmed sii joogo xukunka Kismaayo isaga oo aan ku joogin doorasho lagu midaysan yahay. Agoosto 2019 doorashadii Jubbaland waxaa ka dhashay kala tag gobolada maamulkaas ku midaysnaa. Gedo waa mid ka mid ah 3 gobol ee maamulkan ku midaysnaa. si buuxda gobolkaas ugama aysan daadegin aragtida Jubbaland. siyaasiyiinta ka soo jeeda ee hore xilalka uga soo qabtay Kismaayo iyo kuwa hadda jooga labaduba ma haystaan taageero ka timaada deegaankaas. xujada ay la kulmaanna waa inay talada ugu sarreysa gaaraan. madaxweyne Xasan Sheekh iyo wasiirkiisa koobaad Xamse Cabdi Caar ayaa horboodaya doorashadii 2019 in Axmed Madoobe loo xalaaleeyo, waxaana dadaal kasta ku bixiyeen sidii meel mar looga dhigi lahaa geedi socodkii xilliga iyo natiijadii ka soo baxday. mar kale maanta xujo ayaa haysata dhinacooda. ila wareedyo ku dhow labada dhinacba waxa ay qirayaan inay hadda doonayaan isdhakin siyaasadeed inay u sameeyaan Axmed Madoobe. kulan gaar oo dhex maray darafyadan waxa la xaqiijiyay in qolada kale ay qorshayaal gaadma siyaasadeed u dhiibtay. fiila Soomaaliya waxay doonaysaa inaysan dagaal cad ku qaadin Axmed Madoobe, beddelkeeda ay isticmaasho xeelado duruufuhu ay ka soo gudbiyaan marxaladda hadda ay joogto. Axmedna waxa uu doonayaa inuu duruufahan kaga faa'iideysto oo uu helo taageero xooggan. madaxweynaha Jubbaland ayaa dhawaan u sheegay siyaasiyiinta gobolka Gedo in isaga iyo Xasan ay heshiis ka gaareen arrinta gobolkaas oo isagu noqonayo cidda lagala hadlayo, taasoo muujinaysa heerka labada dhinac ay ka joogaan isdhaqri siyaasadeed. dawladda federaalka gaar ahaan kooxda madaxweyne Xasan Sheekh waxay doonayaan inay Gedo ugu yaraan haddii ay tagi karaan ay wada hadal la furaan maamulka halkaasi ka dhigan, ayna u haystaan goob ay Axmed Madoobe kula dagaalamaan ama curaar siyaasadeed, iyagoo dadaal gelinaya inay helaan raalli ahaanshaha maamulka uu hogaamiye Canjeex. agaasimaha Niisa Mahad Maxamed Salaad ayaa ku fashilmay in Cabdirashiid Janan Barre Hiiraale iyo Senator Faktaag uu dib ugu celiyo Gedo. xukunka Uhuru Kenyatta ayaa dadaalkan qayb ka ahaa, balse imaanshihii xukunka ee Ruto ayaa dacar kala keentay. isku dayo la xiriiray inay isfaham gaaraan Kismaayo iyo maamulka Gedo ayaa fashilmay. tirarka 3 jeer ayaa isku dayadaasi ay noqon waayeen kula guuleystaa. dhammaan dalabka ayaa ka imaanaya dhinaca Jubbaland, taasoo caddaynaysa in Axmed fahansan yahay in gobolkaas uu noqon karo usha loo adeegsado ugu dambeyn haddii danaha fiiladu ay isku toosaan. in Gedo ay noqoto halka labada dhinac ay ku tartamaan waa mid muujinaysa inaysan xaqiiqada wax ku dhisin, sababtoo ah gobolkan hadda midkoodna saamayn kuma leh Jubbaland iyo dawladda federaalka. waxaa ku sugan ciidan fara badan oo hubaysan, sidoo kale waxaa jooga ciidamo ka socda wadamada dariska oo iyana door qaadan kara. weliba xilliga isbeddelka gobolka ayaa saamayn culus ku leh gobolka, ayuu mid ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolkan. warin kale oo ah istilaafaynta fiilada iyo Axmed Madoobe waa inay saaxiibada madaxweyne ee UPD aaminsan yihiin in Xamse Cabdi Barre aan ra'iisul wasaare lagu hayn karin wax ka badan 1 sano iyo bar, taa beddelkeedana loo diyaariyo dhinaca Kismaayo in loo celiyo si halkaas uu doorashada dambe uga keeno xildhibaano kooxda taabacsan. guuldarro siyaasadeed oo ay labada dhinacba lumiyeen si isku mid ah aan sahalna kalsoonideeda lagu heli karin waa isbeddelka ka dhacay Kenya, taasoo daad ka qaadsiisay xisbiga Odinga iyo Uhuru soona waariday Ruto inuu noqdo madaxweynaha Kenya, taasoo Muqdisho iyo Kismaayoba waabay u ahayd. Xasan iyo Axmed Madoobe sida muuqata markii labaad ayay xukunka isku soo gaareen. labada dhinacna hore ayay isugu arkeen dagaal siyaasadeed iyo mid dhinaca lugta oo ciidanka, laakiin maanta sida durba muuqata isdhakrid ayay ka shaqaynayaan. qolada kale ayay la eeganaysaa fursado ay dibir aan soo kabasho lahayn ugu dhufan karto. hadba qoladii ay isugu aadda ayaana heli kartaa maalmo nafisa oo ay ku fushan karto ugu yaraan damacyada ay qorshaysatay. dadka siyaasadda Jubbaland hilaadiya ayaa rumaysan in Axmed Madoobe uusan ahayn Axmedkii joogay 2015 ama 2019, wuxuuna lumiyay garabyo siyaasadeed oo xilliyo kala duwan uu kaga soo gudbay, sida hooyada federaalka ee Puntland oo uu 2019 iyo 2015ba u qaatay mid ka mid ah sahaydii ugu weyneed. Kenya iyo gudaha Kismaayona